marka aad noqoto mid u horamaankiisa iyo maskaxdiisaba hagaajinta toosinta dhiirigelinta iyo rajo u abuurista kumanaan nolosha ka quusqoay waxa hubaal ah in gadaasha la xusi doono lana xusuusan doono raadadkii subana ee aad ka tagtay kuna noolaan doonta jacaylka malaayiin ruux muuqaalkana maanta ayaynu ku eegi doonaa sheekada guusha Dr. Ibrahim Al-Fiqi oo ah shakhsi intuu doono dadaal ku bixiyay sidoo u soo saari lahaa dadka adkaada hirdanka iyo loolanka adag nolosha socodka guushu uma baahna raadinta iyo u boqolista dhul cusub laakiin waxay u baahan tahay hami iyo yididiilo ah in la gaaro oo indhaha lagu hayo waxyaabo cusub odhahdana ay ka muuqato dhiirigelinta iyo niyad samaantu ayaa ah dhaxal uu inooga tagay Dr. Ibrahim Al-Fiqi kusoo dhawow daawada Hindise Tube ana waxaan Jimcaale Hindise أنا شخصياً ما أحبش أقول لحد كل ده ولا ما تاكلش ده، أنت لازم تعرف اللي هي العناصر الأساسية لجسمك، عارف إن جسمك محتاج كربوهيدرات، عارف إن جسمك محتاج نشويات، عارف جسمك محتاج فيتامينات، عارف جسمك محتاج مياه. دكتور إبراهيم محمد سيد oo loo garan og yahay Dr. Ibrahim Al-Fiqi waxa uu 5 August 1950 ku dhashay magaalada Iskandariya ee dalka Masar. Dr. Ibrahim waa tababaraha horumarinta aadanaha waana mid ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee cilmigan ku soo kordhiyay dalka Masar. Ibrahim waxa uu ahaa sabool ay ku adag tahay helista nolol maalmeedkiisu balse u halgamay siduu u gaari lahaa fiinta sare ee buurta unahana lahaa guusha uu haraaday maalinkii uu 25 sano jirsaday Ibrahim waxa uu u safray Canada arrimo waxbarasho iyo inuu ka soo barto maamulka iyo maareynta hoteelada isagoo markii dambana ka bilaabay halkaas arrimo la xiriira ganacsi iyo shaqooyinkiisa u gaarka ah iba furna u noqday sheekada guushiisa wuxuuna horaantiiba noqday mid ka biyo diida inuu isu dhiibo duruufaha qalafsan ee nolosha isagoo bilaabay shaqooyin yaryar oo ay ka mid ahaayeen hagaajinta iyo xalista weelka gurista iyo masaxada kuraasta hotel ka mid ah hoteelada Canada inta aynan ka gudbin shaqooyinkii Ibrahim intii uu ku sugnaa Canada waxa uu ugu dambeyn hantay guushii uu waligiiba ku riyoon jiray wuxuuna uu noqday maamulaha hotel 5 star ah oo ku yaala Montreal Canada sidaas oo ay tahay guusha Ibrahim waxa ayna tusinaysaa in wixii loo halgamo dadaalkeedana lala yimaado aynan ku khasaareynin kana qoomamayn doonin jeer dambe Ibrahim waxa uu guursaday xaaskiisii Amal 1974 waxaana awlaad uu alla siiyay Ibrahim laba hablood oo la kala yiraahdo Nancy iyo Narmin Ibrahim waxa uu qabtay muxaadarad iyo dowrooyin fara badan waxaana lagu qiyaasay dadka ku wax qaatay muxaadaraadkiisa 600 oo kun oo ruux Ibrahim waxa uu cilmiga metaphysics ka qaatay darajada doctorate ee jaamacadda Los Angeles waxa uu diyaariyay muddo 8 sano ah laba takhasus oo kala ah dabeecadaha aadanaha ama human behavior iyo maareynta iibka iyo suuqgeynta waxa uu ugu dambeyn aasaasay hay'ad uu gaar u leeyahay oo ugu magac daray Ibrahim Al-Fiqi International Enterprise Ibrahim waxa uu leeyahay dhiganayaal badan waxaana ka mid ah dhiganihiisa uu ugu magac daray maareynta waqtiga iyo tobanka fure ee guusha waana buuggii ugu saameynta badnaa qulubta kuwii daalacday waxaana lagu turjumay 3 luqadood oo kala ah Arabic, Faransiis iyo Ingiriisi Dr. Ibrahim Al-Fiqi waxa uu ugu dambeyn ku geeriyooday hoygiisa uu ka deganaa Qaahire ee dalka Masar waxaana maalinta geeridiisa loo asteeyay 10 Febraayo 2012 dardaarankii ugu dambeeyay ee Ibrahim inooga tagay ayaa ahaa ka dheero dadka isku dayay inay hoos u dhigaan himilooyinkaaga oo la raafaq kuwa ku dareensinaya inaad hankaaga ka dhabayn karto u noolow ilbidhaqsi kasta sidii uu yahay kii kuugu dambeeyay kuna noolow jacaylka rabbiga akhlaaq suubanaan iyo yididiilo iska jir in riyooyinkaagu ay noqdaan naawilid iyo rabitaan uun waqtiga ayay kaa luminayaan markaas cafi oo maankaaga ka xore tagtadii haddii aanad ehelkaaga iyo dalkaaga ku faraxsanayn cid kalena kuma farxaysid duruufaha ma xukumi kartid laakiin afkaartaada adiga ayaa xukumi kara ilaahay kaalmayso oo ha caajisin marnaba si kastay xaaladuhu noqdaan filashadaada wanaagsan ha sarreyso jiilaalku waa bilowga guga mugdiguna waa bilowga iftiinka fashilkuna waa bilowga guusha dadka fashilma waa laba midkood kuwa fikira si aan ku shaqayn iyo kuwa shaqeeya si aan fikirin haddii aanad adigu hiigsi yeelan waxaad u noolaanaysaa ka dhabaynta dadka kale hiigsiyadooda ha sugi libinta si aad u dhoola cadayso ee dhoola cadeys si guushu iyo libintu kuugu timaado hogaamiyaha indheergaradka ahi waxa uu arkaa wax aanay dadka kale arag marka aynu tagtadii ilowno taagantana habayno ayaynu timaadadana dhisnaa waxaa jira dad iyo agab inoola jira inay muddo kooban inala qaataan ee wax walba qalbigaaga boos ha ka siin waxaa jira xilliyo aynu moodno gabagabadii laakiinse noqdo bilowgii shaqo bilaa yididiilo ahi waa waqti lumis yididiilo bilaa waqtiina waa niyad jab
haddii waxa dhabarkeena laga sheegayaa run ahaan lahaayeen horteenna ayaa laga sheegi lahaa. kuma qasbi kartid inay dadku ku jeclaadaan, balse waxaad ku qasbi kartaa inay ku ixtiraamaan. haddii aad qof kalsooni buuxda siiso, laba midkood filo, qof waara ama 10 waara. marka aad niyadsan tahay yididiinana leedahay, wax waliba waa suure.